Xasan Cabdulaahi Cumar Karate oo u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in haddii uu noqdo madaxweynaha dalka uu Somaliland u aqoonsan doono dal madax bannaan oo la jaara Soomaaliya. Karate waxa uu sheegay in haddii uu guuleysto baarlamaanka Soomaaliya horgeynayo qaraar lagu ictiraafayo Somaliland 60 sano kadib, waxaana uu tallaabadaasi ku tilmaamay mid xalwa kala lulashada Soomaalida. Xasan Karate oo warbaahinta kula hadlayay hoygiisa magaalada Kismaayo waxa uu yiri arinta Somaliland anigu waxaan aaminsanahay wadooyinka rasmiga ahaa ee loo mar lahaa ee wada heshiisiinta inay ka lumeen oo aan wadadeedii la marin. Dhaliishu meel walba yeelan kartaa. Koonfurta ha ugu badnaato inayna xilba iska saarin dhibaatooyinkii dhacay sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka walaalaheena, sidii loo raadraaci lahaa oo la dhihi lahaa warseebe wuxuu noqdeen. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa colaad sokeeye waxay ku dambaysaa sidee bay wax ku gaareen iyo sidee bay wax ku gaareen. Aakhir ahaan eventually dadkan Soomaaliyeed way isu imaanayaan, hal bay noqonayaan, laakiin se waa in laga sameeyaa maslaxadii waa in laga ilaaliyaa. Arinta Somaliland anigu waxaan aaminsanahay maanta wax ka duwan baan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay 1960 markii gobolada waqooyi iyo koonfur isku darsameen ee dawladda Soomaaliyeed la yagleelay wadooyin badan oo markaas sax ahaa in la maro ayaa la dhaafay. Haday noqoto power sharing, haday noqoto Soomaalidu say wax u qaybsanayso laba maamul oo isku darsamay oo midna uu yahay British colony midna uu yahay Italian colony ayuu ahaa. halkaas waxay noqotay hatta sanadihii bilowga ahaa colaado yaryar oo xurgufo ah way iska jireen, laakiin se iimaanka Soomaalida ayaa markaas aad u wanaagsanaa oo midda maanta uu yahay oo kale aan ahayn oo waxyaalo badan bay soo jiitankii ku gaadhay. Arintaas iyada ah waxaan aaminsanahay mar haddii Soomaaliya ay burburtay 1991 oo maanta laga joogo 31 sano laga joogo in Somaliland maartay waxaan ku dadaalay haddii Ilaahay Allah awoodda ii garto inaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya inaan baarlamaanka keeno oo u ololeeyo Somaliland siday u noqon lahayd dawlad muddo 60 sano ah loo qabto. muddada 60 sano ana waxaan ugu salaynayaa bacdama 1960kii xornimadii la qaatay inay noqoto dawlad walaalaheena oo ina garab yaala oo in ku baxsano oo badbaadino sababta 31 sano oo aan isku huursanahay koonfur aan isku huursanahay oo waxba aan la qabsan karin oo caasimadii Soomaaliyeed maanta Soomaali muwaadin Soomaaliyeed oo ku noolaan kara uu jirin nin u dhashay maahaana uu jirin ruux kastana uu bugcadiisa iska aaday. Walaalaheen Somaliland marka waxay mudan yihiin muddada 60 sano ah in xornimadooda baarlamaanku uu baas gareeyo sida Taiwan oo kaleeto ay noqoto muddo 60 sano ana afti loo qaado. waa walaalaheenu hadday kursi ku yeeshaan qaramada midoobay tartan bay galayaan, ciyaartooydoodu xitaa waxay ka qayb galayaan ciyaaraha caalamiga ka qayb galayaan, ganacsigooda iyo chamber of commerce adduunka waxay ka qayb galayaan, adduunka wax la qaybsanayaan. waana dad walaalaheenu inala dhashay. marka xaasidnimadu ma fiicna in lugta la isku soo dhaganaado ma fiicna. anigu waxaan qabaa 31 sano ee koonfurtu ay degi weeday ee dhibaatadu ay ka dhacday haddii la helo xal loo helo muddo 60 sano ah Somaliland inay tahay dawlad madax bannaan oo ka bacdina 60 sano kadibna afti laga qaadi karo inay walaalahood ku biirayaan iyo kaleeto ayadoo la wada bislaaday oo jiilalka cuqdada qaba iyo xasidka iyo xiqdiga qaba ay meesha ka baxaan. sababta 60 sano waxa imaan doonta jiilal cusub oo Soomaaliyeed oo nadiif ah oo aqoon leh oo wax ku kala goosanaya aqoontooda ayaa imaanaya. marka jiilalkaasi meesha ay ka baxaan waxa imaanaya marka Soomaalnimo dhabo ay soo gelaysaa. maanta waxa laga joogaa 45 sano laga joogaa markii Djibouti ay xornimadii qaadatay 1977. waad aragtaan maanta saamiga Djibouti ay ku leedahay qaramada midoobay inay organization walba iyo xubin walba oo qaramada midoobay loo tartamayo ay u tartanto inay kursi leedahay inay codkeeda leedahay. marka wax soo batay oo bay noo noqonaysaa fikirka ah inaynu micnaheed maartay aan isku wada dhaganaano anigu waxaan aaminsanahay in la furfuro. ta kaleeto haddii sidan ay ahaato waxay noqonaysaa Somaliland waxa hadda nooga yimaada ee kuraasta iyo xildhibaanada laga doortaa koonfurtu sideeda waa iska dhagweyn weeyaan. ruuxa waxay ku qiimeeyeen ruuxaas reeqooyi la waayno iska leeyihiin. war ruuxan muxuu yahay Somaliland waxay ku soo diraysaa ruuxii siyaasadda ku saaqiday
inta nala joogto dhan waa saaqidiin xagga siyaasadda oo la jaanqaadi waayey somalilan la jaanqaadi waayey kuwii aqoonta lahaa nooma soo diraan oo somalilan bay joogaan culimadooda waaweyn ee diintu nooma yimaadaan oo micnihii maartay somalilan bay joogaan marka waxaa loo baahan yahay arrimahaas in la furfuro xataa aqoon-yahanada ay soo diraan ee la leeyahay waa PhD iyo Ismaaciil Samatar iyo kuwan la leeyahay waa PhD ku takhasusay juqraafiga ku takhasusay adduunka juqraafi maadadaas way ka baxdayba Google Earth ba adduunku hadda uu raaca PhD laguma qaato innagaan aqoon-yahan ahaan baa laynoogu soo diraa marka waan soo gaabinayaa mar raba inaan maartay ay meelo kale ila sii gasho ummadda Soomaaliyeed mar walba waxaan jeclahay horumarkeeda waxaan jeclahay sovereignty-geeda iyo qarannimadeeda in la ilaaliyo waxaan jeclahay maartay isu imaanshaheeda waxaan jeclahay midnimadeeda aad iyo aad baan idin salaamay Soomaaliya ha noolaato